kani waa shimbirka loo yaqaan tukaha. Tukuhu waxa uu ka mid yahay shimbiraha laga helo geeyga Soomaalida, waliba kuwooda dabjoogta ah ee inta badan dadka guryaha iyo magaalooyinka aan ka ag fogaanin. Haddaba waxyaabaha tukaha lagu xanto waxa ka mid ah fuliynimo iyo waliba saqajaanimo. oo hadduu si kasta u dhargo tukuhu, haddana waa kii laf la tuuray daba carara. Sidoo kale fuliynimadiisana maansooyinka iyo gabayada Soomaalida aad baa loogu xusaa. feejignaantiisana waxa la sheegaa geedka inuu ka duulo markay labada nin is eegaan ama uu ogaado in isaga la isu tilmaamayo. Sidoo kale tukaha waxa lagu sheegaa inuu yahay laba qurub qaate ama mid laba dhinacba ku tirsan. mar waxa uu la socdaa bahalaha hilibka xoolaha cuna, waana noolaha ugu hilibka jecel oo maba jirta baa la yiraahdaa tukuhu raq uu ka qada haday tahay mid la qalay, mid bahal dilay ama mid bakhtiday. waxaanu ka mid yahay astaamaha ugu waaweyn ee lagu garto meesha ay raqdu taalo. tukuhu barta uu hilibka ugu jecel yahayna waa labada indhood. mararka qaarkood maqasha yaryar iyadoo seexatay buu indhaha kala baxaa isagoo bakhti moodaya. mar kale tukuhu waxa uu ka mid yahay xayawaanka aan dadka ka ag fogaanin ee guryaha baadha. waxa lagu tilmaami karaa inuu yahay xariif labada dhinacba ka xamaasha. dadku way dhibsadaan tukaha codkiisa, marka uu qaaq yiraahdana qalladi kugu dhacday bay ugu jawaabaan. tukaha af carabi magaciisa quraab baa la yiraahdaa. waxa jira qisooyin badan oo run iyo been bale oo tukaha laga soo wariyo. hase ahaatee midda ugu saxeexsan waa qisada sheegaysa tukuhu inuu yahay shimbirkii bani aadamka baray sida meydka loo aaso markii ay istireen labadii ilmo nabi aadam. tukuhu waa shimbir isu wada eeg oo aan mid laga garta lahayn. marka ciyaalku googaalaysanayaan waxa ay tukaha ku